dalka Turkiga ayaa sheegay Isniinta maanta in ciidankiisa cirku uu dilay 26 Kurdiina kuwaasi oo ku sugnaa Suuriya iyo Ciraaq. Turkiga ayaa sheegay inuu ka jawaabay dil loo geystay laba askartiisa ah oo dhamaadkii toddobaadkan la dilay. Ciidanka ammaanka ayaa isaguna xidhay tobanaan ka tirsan taageerayaasha saraakiisha Kurdiga ee mucaaradka dalka Turkiga. Sabtidii ayaa wasaaradda gaashaandhiggu ay sheegtay in 12 ciidanka Turkiga ka tirsan la dilay kadib markii ay dagaal la galeen kooxda la mamnuucay ee PKK ee ku sugan waqooyiga Ciraaq. Arrintaasi keentay in Turkigu uu qaado howlgallo iyo duqeymo xagga cirka ah. Ururka PKK oo dalka Turkiga oo Mareykanka aan dhahday iyo Midowga Yurub ay u aqoonsan yihiin urur argagixiso ayaa sanadkii 1984 dagaal hubeysan kala hortagay dalka Turkiga. Turkiga ayaa si xiriir ah duqeymo uga geysta dalalka ay dariska yihiin ee Ciraaq. Arrintaasi oo qayb ka ah weerarka uu ku hayo ururka PKK oo isagu waqooyiga Ciraaq saldhig ka samaystay magaalada Diyarbakar ee Turkigana. Booliiska ayaa xidhay 12 qof oo ka tirsan ururka DEM ee ay leeyihiin qowmiyadda Kurdiga ee Turkigu sida ilo dhinacyada ammaanka ay sheegeen.